ama tahriibka aado laba sabab ugu weyn marka anaga cilmi baaris yar aan ku sameeyna koow waa shaqo la'aanta haddii fursadaha shaqada aan loo simin da'da soo korayso oo aanan lagu dhiirigelin in dalkooda ay shaqo ku heli karaan waxaa badanaysa digriga dadka ka cararaya waddanka yaa kor u kordhaysa taasoo keenaysa in da'yarta waddanka ay ku yaraato midda kale oo keenaysa in muxuu dhalinyarada ee waddanka ku yaraato waxaa ka mid ah xaaladaha amniga haddii mar allaala qofka dhalinyarada uu yahay taargetka koowaad ee lala eegsanayo xaaladaha amniga ama haddii meel ka dhacdo qofka la qabanayo hadduu yahay uusan helaynin cadaalad sax waa qofka dhalinyarada dembi wuu geli karaa xadgudub wuu geysan karaa laakiin waxaan rabnaa annaga in la marsiiyo shuruucaha iyo muxuu ah xaaladaha waddanka u degan ee ah in qofka cadaaladda la marsiiyo qofka kama weyna dastuurka alqaanuun fawqa aljamiica rabnaa laakiin ma rabna alqaanuun fawqa shabaab keliya waxaan rabnaa in dhalinyarada helaan xurriyad taam ah ay magaalada ku mari karaan ku ganacsan karaan xuquuqdooda ku dhacsan karaan nolol maalmeedkooda xalaasha ay ku raadsan karaan waxbarashadooda iyo horumarkoodana ka shaqayn karaan dantooda guud iyo dadkoodana ay ugu adeegi karaan challenge koowaad ee la kulmaysa dhalinyarada waa xuquuqdooda waxaa jiraysa ogsoonaan dhalinyaro badan oo xiran hadda dhalinyaradaas xiran waxaa ka codsanaynaa maamulada jira ee ku hoos xiran yihiin in ay marsiyaan sharciyada loogu talagalay ee muxuu ahayta nidaamyada maxkamadeynta qofka haddii lagu helo dembi waa sax in la maxkamadeeyo oo la marsiiyo ciqaabta uu xeerka ama sharciga waddankaas ka degsan uu marsan laakiin xaq ma ahan qof dhalinyaro ah oo meel la iskaga hayo sidaas daraaddeed waxaan mar kasta dhiirigelinaynaa oo ugu baaqaynaa nidaamyada ka jira inay mar kasta dhalinyarada ilaaliyaan xuquuqdooda waa isha keliya ee mustaqbalka u ah dalka waxaan leenahay dadka hadda da'dooda ee dhalinyarada ka gudubtay ee muxuu ahayto ee nidaamyada haya waa in ay fiiriyaan arrimaha dhalinyarada waayo dhalinyarada hadda waa mustaqbalka hadhow iyaga ayaa la rabaa hadda cashirkaa u aqrisid inay meeriyaan marka min ixsaanik waxaan rabnaa inaad meerisid cashir wanaagsan wax wanaagsan ha lagaa dhaxlo taariikhda wax wanaagsan ha kuu gasho fadlan yaree tacadiga dhalinyarada marka intaas waxaan kaga gudbaynaa challenge-ga haya dhalinyarada erey kale oo ah wadaniyadda waa isku xiran yihiin dhalinyarada waayo qofka dhalinyarada ah wuxuu u baahan yahay intimaa waxa la lahaa sheegasho belongingness inaad meel leedahay adiga meesha aad leedahayna waa dhulkaaga hooyo inuu lahaatid ayaa waxay keenaysaa wadaniyadda marka waa maxay wadaniyadda waa in laga shaqeeyo lana ahaadaa xubin waxtar u ah bulshada dhexdeeda wadaniyadda lagu sheegaya waxaa waaye in laga shaqeeyo bulshada xubin waxtar oo kaalin mug leh laga ahaadaa wadaniga soomaaliga ah waxaa lagu yaqaanaa astaantiisa inuu markasta og yahay hamiga soomaali weyn inuu yahay mid jira taagan lana bedeli karin tahayna in loo dadaalo sidii loo xaqiijin lahay mas-uuliyad asaga saaran qofka wadaniga waxaa la og yahay inay mas-uuliyad saaran tahay in la xaqiijiyo hamiga soomaali weyn waxaa jirto mas'alo la dhahay soomaali weyn markasta inaa ogtahay adi ma la rabo haddaa rabtid inaa muxuu ahayto cirka gaartid ya markaa rabtid inaa xidigaha gaartid cirkaa la hiigsadaa markaa rabtid inaa naftaada badbaadisatid waa inaa hamigeena u ahaadaa soomaali weyn wax